annaga ma qarinayno been kama sheegayno runtaan sheegaynaa way noo caddahay waan ku shaqaynaynaa teendha dambe Soomaali la iskuma dooranayo qofkii rabaa in walaalkii raba inay wixii hore iyo teendhadii iyo noocii inaan ku sii soconno waaga dhaweyd ee aan fogeynba halistaan galay waa ogeyd inay xabadi dhacday baad ogeyd in dil dhacay baad ogeyd in delay dhacay baad ogeyd in qarankani halis galay baad ogeyd mas'uuliyadda Ilaahay uu na saaray inta aan joogno waxa Ilaahay nagu xisaabtamayaa inaan Soomaaliya meeshii ku celin marka cidii wax ka rabta meesha ee wax ka qordinaysa ama u lugjiidaysa waxaan leeyahay rajo lagama qabo daba heshiisiinta oo taaba gasha waxay bulshadeena u horseedi kartaa nabad ku wada noolaansho iyo xasilooni waarta si is-aaminaad iyo isdhexgal bulsho dhaqanka Soomaaliyeed ma dhaqanka ummadda Soomaaliyeed wuxuu ku suntan yahay u geed fariisiga iyo gorfaynta dadaalada nabadeed iyo xalka gaarista colaadaha bulshada dhexdeeda ah waxaana astaan u ah aan wada hadalno waa aan heshiino sidoo kale waxay leeyihiin xeerar dhaqameedyo isugu jira habraaca naadinta nabadda xalinta ama dhayda wixii dhibaato ah ee kala gaaray dadka dirirtu dhex martay si ay nabaddu haddaba ay u taaba gasho xalkuna uu u noqdo mid waara waxaa gogasha lagu gunaanadi jiray guur iyo gabdho la isa siiyo si ay sariigta xididka iyo xigaaluhu u tirtirto cuqdada kala dhex gashay colaadaha sokeeye dadka ay dhex martay culimada Soomaaliyeed oo waligood hormuud ka ahaan jiray dhaqanka iyo dib u heshiisiinta ummadda Soomaaliyeed waxaa laga maarmaan ah in ay kaalintooda ay waligood ciyaari jireen ka ciyaaraan midaynta ummadda Soomaaliyeed waxaa saaran mas'uuliyad ballaaran oo waliba ka saaran isku soo dhaweynta bulshada daaweynta cudurrada kala irdeeyay bulshada sida qabyaaladda musuqa iyo eexda iyaga oo ku daraya waajibaadkooda dacwiga abwaan Soomaaliyeed ayaa yidhi inay nabaddu door tahay ayaan la isku diidayn waa qodob daruuriya qofkii daacada garan deganaansho meeshii laba darajo taallay nabad baa dagaal iyo ka wacan dirir colaadeede nabad baa dalkeena u roon danaha Soomaali nabad baa ninkii doona uu dib ugu aayaay nabad baa dadka wada dhaqmiyo daris wanaageed leh nabad baa daraadeed dhiblii dabac ku maashay haddaba si loo helo dhabo heshiisiin taabagala kuna taagan sal adag waxaan ballan qaadaynaa kow dhayda iyo daaweynta nabaradii iyo go'ashooyinkii ka dhashay colaadihii sokeeye iyo qaran burburkeennii iyadoo ay ku dheehan tahay garowshiyo isdhaafsiga wixii dadka kala gaaray si aan u hiigsanno mustaqbal aan wada leenahay laba xalinta khilaafaadka taagan ee ku salaysan kala shakiga kalsooni la'aanta bulshada dhexdeeda ah iyo cabsida ku qotonta suurtagalnimada soo noqoshada wixii dhib ahaa ee horay u dhacay oo dadka aad moodo marar badan runtii inay dhagaha u taagayaan oo u diyaarsan yihiin inay maqlaan khilaaf oo su'aalaha kugu imaanayaan marar badan ay noqon karaan goormaad iskhilaafi doontaan saddex dhisidda nidaam cadaaladeed oo wada gaara bulshada Soomaaliyeed kuna dhisan u sinaanshaha xuquuqaha iyo waajibaadka qarankeen waxaan rabaa inaan halkaan
كبوغاديو dhaqamada wanaagsan ee maalmo dhow aan ka arkaynay gobolada qaarkood kaas oo ahaa geel 30 sano in ka badan ka hor la kala dhacay in maanta la isu celiyo waa arrin ku dayasho mudan runtii lana dhihi karo waxay bilow u tahay hirgelinta qorshaha dib u heshiisiinta bulshadeen dawladda Soomaaliyeed waxay hormuud ka tahay dokumentka ugu weyn ee dad ummadda ay ku heshiiso ee siyaasadeed oo ah dastuurka marka dastuurkeenu waa heshiis bulsho wuxuuna runtii qorayaa wixii la isku hayay siyaasad awoodo wixii oo dhan in lagu heshiiyo ayuu qorayaa waxaan sameynay dastuurka options bay dadkeenu sameeyeen inagoo kaashanayna beesha caalamka option 1 2 3 waxaynu u baahnayn in siyaasiyiintu ay optionskaas kala xushaan oo yiraahdaan keeba fiican ma kana roon mise kana fiican waa bisil yahay waa la soo diyaariyay waxay u baahan tahay kaliya wuxuu joogaa xilligii decision-ka la qaadan lahaa dadkii qaadan lahaana waa u jeedaan inay qaateen oo ay soo kala ay doorteen wixii ayaga la qumanaa meesha ugu dambaysa ee wax ku soo ururayaanna waa golaha shacabka iyo aqalka sare oo shacabka matalaya oo deedna ayagu go'aanka ugu dambeeya iska leh waxaad ogtihiin in anaga NCC go'aankii ay soo gaartay in la soo baarlamaanka la keenay baarlamaankuna ay in fara badan bedeleen sidii aan anagu u soo gaarnay si ka duwan ay u dhigeen waan ku qanacsanahay waan ku kalsoonahay waa dhici kartaa inaan anaga si kala nala qumanayd laakiin de waa hay'adihii xaq u lahaa waa hay'adii xaq u lahayd ayaga ayaa iska leh sida ay u dhigaan ayagoo shacabka matalaya annaguna waa ku qasbannahay in aan ku waafaqno kana shaqeyno wixii ay dhaheen halaga shaqeeyo runtii waxaa naga go'an oo dawladda federaalka ka go'an in aan ku soconno mabda'a ah Soomaali heshiis oo ay madaxda dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka iyo dawladda Soomaaliyeed ay mar walba isla jaan qaadaan annagu waxaan la cararayna ma jirto taladu wayna dhex taala waa keenna waa laga hadlaa waa laga doodaa dadna marka ugu dambaysa dhinac baa la isu raacaa waxaan shaki ku jirin hadda dadku markii ay isu yimaadaan hal qalbi ma wada laha waa la iskhilaafi karaa waa la kala ra'yi duwanaan karaa laakiin platform baan leenahay wax alla wixii anigu aan kaga duwanahay walaalahayga kale platformka inaan keeno waa inaan doodayda soo dhigtaa waa inaan sidaan wax u arka cadeeyaa aniga oo ka fayow dan gaara waa inaan dawladda Soomaaliyeed haddaan matalayo guud ahaan iyo haddii aan state-ka matalayo gaar ahaan waa in aysan ku qotamin doodaydu shakhsiyadayda aniga haddii taa laga fayoobaado oo aniga ta igu wareegaysa aan ka dhex baxno waxaan ballan qaadayaa oo aan guarantee gareynayaa dadka Soomaaliyeed ee siyaasiyiinta inay waxba isku diideen markay timaado danta shacabka Soomaaliyeed iyo dadka ummadda Soomaaliyeed markay timaado haddaad annaga hadiiba wuxuun qayla soo yeelo waxaan meesha ku jirin baan ku joojobayna waxaan meesha ku jirin joojobaynaana waa dantayda aniga shakhsiga iyo danta hebel ee shakhsiga waay aan ka saaro danta hebel laakiin dan Soomaaliyeed markaan isugu nimaadno waa heshiinaynaa doodna kuma jirtaba ta shakhsiga lafteeda aan diyaar u nahay inaan maarayno laakiin waxaan ku maaraynaynaa dallaankii dharabtaada oo galbaa la sitaayay horta platformkaan isugu imaan ayada lafteedaan diyaar u nahay inaan maarayno laakiin waa inaynu isu nimaadno waa inaynaan caasimado kala aadin waa inaynaan meelo kale aan laynooga gacan haadin waa inaynaan meelo kale oo aan danteennu ku jirin inaan laynooga gacan haadin waayo jabkeennu wuxuu imaadaa markaan jabkaaga dhabtii wuxuu imaanayaa markaad walaalkaa ka tagto ee aad meel kale aad aadood wada garanaysaan idin kulligiin horey baynu u aadnay
saraakiisheenii baa aaday generaaladeenii baa aaday ganacsatadeenii baa aaday dadkeennii baa aaday xaggeen aadnay markii dambe xaggeyna la tagtay waxaan ku baaqaynaa oon dadka Soomaaliyeed meel kasta joogaan ugu baaqaynaa oon madaxda dawlad goboleedyada leeyahay oo aan siyaasiyada Soomaaliyeed leeyahay dhammaantood wixii gaar inoo ah ee qofka shakhsiga gaar u ah ee maslaxad gaar u ah siyaabaha loo maareeyo oo aan isugu imaanayno inagu aanu maarayno laakiin yayna isku dhex qooshin biyo iyo dab yayna isku darin yaan la isku dhex qooshin danaha gaarka ah ee adiga leedahay qofka shakhsiga ah iyo danaha qaranka deedna yaan cinwaan la soo dhigin danta qaranka ama danta state-ka ama danta dadka deedna hoosta waxa kaga jirana waxa waaye باطن يوسن حوست كجتشنا هذا فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب يسنقون سياسيين توا حنكرمنا أن لقيا بيرس الحلال هين أما مضح وراهي دلقات وضيت النمو إيوه إن أي هل حبك قنعان أنا ما قرينا إنه بين كم شيء إنه كنت الشيء إنه وينوع عضهاي وأنكو شقينا إنه teendha dambe Soomaali la iskuma dooranayo qofkii raba in walaalkii raba inay wixii hore iyo teendhadii iyo noocii inaan ku sii socono waaga dhaweyd ee aan fogeynba halistaan galay waa ogeyd inay xabadi dhacday baad ogeyd in dil dhacay baad ogeyd in delay dhacay baad ogeyd in qarankani halis galay aad ogeyd mas'uuliyadda Ilaahay uu na saaray inta aan joogno waxa Ilaahay nagu xisaabtamaya inaan Soomaaliya meeshii ku celin marka cidii wax ka rabta meesha ee wax ka qordinaysa ama u lugjiidaysa waxaan leeyahay rajo laga ma qabo meesha kuma noqonayno walaalow waa mahadsantahay hor soo soco fursad ka fiican aan ku haynaa fursad kaaga fiican ma ku haynaa oo maxay tahay horta dalka waa ku xoreynayna hadii Ilaahay yiraahdo oo adoo dhul nabada oo aad sharaf iyo karaamo ku leedahay ayaad insha Allah u soo diyaar garoobi doontaa waa qodobka labaad walaalow waxaan ku haynaa bulshadaada soo dhaxgal xisbi samayso ka shaqayso political party weight samayso ku yar samayso isu wada tago coalition samaysta dhammaantiin u soo diyaar garooba dadkiina inaad dib ugu laabataan si xor ah oo xalaal ah aad wax u weydiisataan deedna haddii la idin doorto idinkoo sharaf leh oo karaamada aadna wada hogaaminaysaan dhammaanteen taasaan runtii ayaan idinka haynaa laakiin tii aan lagu faraxsanayn doorashadii 51 qof 101 qof oo meel la geliyay oo hal qof go'aan ka soo gaarayo anigu waxaan ku jiray dadkii halka qof ee go'aan ka soo gaaray oo isoo siiyay kursiga bari oo lagu soo guuleystay laakiin mid qof hal qof kaliya go'aankiisa ku xiran hal qof kaliya go'aankiisa ku xiran oo waliba in badan oo kamid ah dadka hadda mas'uuliyiinta siyaasiyiinta ay dhibaato badan ka soo gaadhay oo og yihiin waxaan leenahay wartii haynagu celinina waana is ogeyn markii mucaaradka la wadahay banaanka la joogayo dhibka ay arinta inagu haysay waan wada fahamsanahay go'aanku wuxuu wada ahaa aan isla gaadnay ee la isla ogaa dastuurka aan wada dhamayno waxaan u maleeyahay bulshada Soomaaliyeed waa la wada sheegay doorasho codiyo qof ayaa la gaadaya halkaas la aadaya meeshaan laguma soo noqonayo taasna bulshada Soomaaliyeed dhagahoodu way wada maqleen oo way wada haystaan kulligeed ballanqaad guud oo siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo waajibaad saaran ilaa maanta saaran waaye intii u baan anaguna ka shaqeynaynaa waxaan rajaynaynaa inaad nagu gacansiisaan inagoo walaalo ah oo haddaan qaldannahay wixii qalada aad naga celinaysaan oo haddii aan saxsannahay dee watacaawanu cala albirri wattaqwa wixii fiican in la isku caawiyaa waajib ah laakiin wixii fiican in la diido ama la hor istaago runtii ma qurux badna marka waxaan ku soo gabagabeynayaa
mushkiladaha waaweyn iyo cudurrada aan ka qaadnay dhibaatadii 30 sano ka badan soo socotay ee khilaafka iyo dagaalka iyo mushkilada ah ee cudurka oo dhibaatada ugu weyn waxa waaye in ay dadkeenu la qabsadeen khilaafka dadkeenu waxay iskala qabsadeen khilaafka iyo in dadku ay mar walba is haystaan marka haddii ay madaxdu iskhilaafi weydo macnaheedu waxa weeye xukuumadii ma jirto madaxweynaha iska haysta wax oo dhan wax ka jira ma leh waa meel aan dhaqaaq lahayn waa meel inkaar ku dhacday oo lagu jabay oo hal nin uu ka taliyo maxaa dhagta loo taagayaa oo la rabaa oo la jecel yahay khilaaf annagu inta tabartayada ah arinta ayada qofkii ku riyoonaya ama raadinayo in badan baad sugi waxaan leeyahay dib u heshiisiinta dhabta ah waa midda wasaaraddu ay ku dhawaaqday waa midda xukuumaddu ay ku hogaaminayso dalka waana midda visionkii madaxweyne xasan sheekh uu udub dhaxaadka u yahay oo ahayd Soomaali heshiis waxaan rajaynayaa maanta intii ka shaqeynaysa halkan ay wada fadhiyaan marka aan ka shaqeyno dawladnimada taas asaas u ah inaynu dib u heshiisiino ama aan dhab u heshiino